عليكم ورحمة الله وبركاته سو dhawaada halkan waa janalka faaliyaha dhadhaab alaab aad kala socotaan warbixinada ku saabsan xerooyinka dhadhaab maanta waxaa idin hayaa warbixin muhiim ah warbixintaas oo ah saa ogtihiin ba dad badan ayaa falay joogay dad baa INS maray dad baa GVA maray dad baa first phase second phase maray dad badan bariyahan hadalheynta ugu badan waxay tahay tirkoob iyo buufiskii ayaa si xawli ku socda oo dadkii INS maray ayaa caafimaad la marinaya caafimaad badan ayaa socda dad badan la soo wacay dad baa Nairobi joogo caafimaad joogo dad baa karantiil ku jiro oo saa ogtiin ba karantiil joogo dad baa corona laga helay oo in la baaray coronavirus laga helay markii la soo waco dadkii corona caafimaadka maray koodii wax laga baarayaa corona saddex bariya ku jiraysa karantiil xaga dheer saa ogtiin ba saddex karantiil waxa xaga dheer qofkii laga baaro coronavirus la geenaya saddex bari meesha ku jiraya kadib result soo baxayso hadii laga helo coronavirus waxa lagu geyn doonaa main centerka F2 oo isbitaalka weyn F2 lagu geyn doonaa hadii dadkii laga waayo waxa loo qaadayaa Nairobi dad badan Nairobi jira oo caafimaad soo maraya marka caafimaadkii socda dadkii la soo wacaya marka la socdo dadweynaha caafimaad nagu socda buufisna dhinac ka socda tirkoobna preparationkiisa dhinac ka socda sanadkiisa meeshii la dhisaya waa la hagaajinaya sir badan aniga dabageen dadweynuhu waxaad ogeyn in tirkoobkan la sheegay in lagu kala bixin rabo oo dadna ay qaadan rabaan ID dadna ay qaadan rabaan car maadaama qofkii uu leeyahay car iyo kibaano isla haysto hadii la dhaho kibaanaha dhiib oo kibaanahii dhiibayo waxaa la rabaa kibaanahaas in farihii si looga bixin lahay falkeeda la galo oo ciyaar ay noqon waayo waxay ku xiran tahay mustaqbalka qofka bini'aadamka ay ku xiran tahay waayo hadii kibaandi kaarkii aad qaadanayso kaar arabin kibaandi waxa kaar arabto oo kibaandi aad dhiibeyso waxa laga rabaa kibaanahaas in farihiisa ay ka baxaan faraha Kenya laga bixiyo hadii aad kaarkii aad dhiibeyso oo kibaanaha qaadanayso in UNHCR dhaatada toos ugu baxdo oo la kala qorto UN iyo dawladda Kenya ay ku heshiyaan ay qortaan arrimahaas socdo oo la hagaajinayo oo sidii dadkii waxoodii looga shaqeyn lahaa si sax looga shaqeyn lahaa waayo lama rabo sidii 2019 ka dhacday oo 14 in faraha laga bixin lahaa ilaa hadda iska yeelan lama rabo looma baahno waayo waxa la rabaa wax sax ah oo sharci ah oo dadweynaha ay heli karaan loo sameyn karo oo cad in lagu shaqeeyo cadeen inay imaataan rameesh cadeyntii ayaa loo baahan yahay waayo meesha waxa ku kala tagay dad baa ku kala tagay dad baa isqabo waa la isguursaday 95% Kenyaan guursaday 95% qaxootiga guursadeen saana la soo dhaxgalay markii dadweynaha waxa la rabaa si lagu kala baxo dad badan family meesha isu raacayaan meesha ku kala tagay lahayn si isu raaci lahayn ilmihii mustaqbalka soo noqon lahaa wax badan loo baahan yahay marka degdeg lama rabo dad baa degdeg rabo oo tirkoobka aaway oo degdegsanay marka degdegta waxa ka fiican in meel la soo raaco oo dawladda UN maadaama ay isla qabanayaan tirkoobkii qof kaliis ma qaban karo UN kaliya ma qaban karto dawladda kaliya ma qaban karto marka waxa la rabaa in joint verification la sameeyo oo la soo imaado dawladda Kenya ay soo imaadeen dadweynihii guddigii waxna isla qabtaan waayo si dadkii wax loogu bixin lahaa qofkii markuu wax ku weydiyo meel aan socda saana rabo ku dhaho sidii in loo sameyn karo la rabaa hadii loo sameyn karin waxa imaani carqalad waayo hadii kaarkii ay qaadato oo kibaanada Afriis ku jirto dhib baa imaanay kibaaniin waa dhiibtay fariin waa ku jirtaa marka maxay imaan karaa dhib baa imaan kartaa marka hadii far lagu saar meel kibaaniga kugu soo boodi ala kulli hal meel kaga baxsanaysa malaha marka waxa la rabaa sidii u kala bixi lahayn dadkii ay u kala bixi lahayn qaxootiga Kenya ay u kala bixi lahayn in loo shaqeeyo in loo sameeyo wadadaas saas la rabaa marka in la kala qorto oo jadwal dadka kala haga la helo oo sax ah oo markii su'aalkaas la weydiiyo miskibaana roobka baan meel loo bixin karo dawladda Kenya in qofkii loo dhiibo karkii fariiq ay ka bixin karto UNHCR in loo dhiibo karo ayna fariiq qaxootiga ay ka bixin karto ayaa loo baahan yahay marka saas ay jirtaa tirkoob waa la qabanaya waa la qaban doonaa marka meeshiin waa la dhisaa waa la hagaajinaya marka dadweynaha dul qaataan halkaan la ssocdo halkaan kala soconaysi wax kasta ugu bixin oo ku saabsan xogta tirkoobka waxaan leeyahay channelka subscribe saara like saara share gare fadlan hal share gare meel hal gaarsiyo sifa qofka saaxiibkaaga iyo walaalkaaga ogeyn uu ogaado wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh